warahmatullahi wabarakatuh. Qaybteeni labaad baynu bilaabaynaa gastrointestinal pharmacology-ga. Waa gastrointestinal spasm ama GI spasm-ka xanuunka loo yaqaano. Si guud Soomaaliga waxaa loo yaqaanaa casiraad ama caloosha oo qofka la maroojinayo. Xanuunkan marka la qeexayo marka waa qaabkan soo socota. Gastrointestinal spasm are a sudden involuntary contraction of muscle in the digestive tract causing pain and discomfort. Waa xanuun si lama filaan ah u dhaca kaasoo murqaha calooshu ay isku tagaan ama ay sameeyaan waxa loo yaqaano contraction. Murqaha caloosha ama murqaha dheefshiidka ayaa waxay sameynayaan contraction inay isku tagaan ama isku ururaan kadibna waxay sababayaan pain and discomfort xanuun iyo sidoo kale waxay sababayaan xaalad aanu qofku jeclayn ama xaalad discomfort ah ayuu sababaya. Xanuunkan gastrointestinal spasm-ka astaamaha lagu garto waxaa kow ka ah abdominal pain, caloosha oo qofka aad u xanuunta, or cramping ama caloosha oo qofka laga qabto, bloating and gas, caloosha oo qofka dibirta, gas fara badanna yeelata ama naqas fara badan, diarrhea ama constipation, caloosha oo qofka shubanta ama dhaqaaqda, iyo sidoo kale caloosha oo istaagta, labadaba way yeelan karaan ama mid ka mid ah. Feeling of incomplete bowel movement, iyo qofka oo dareema in calooshu aysan socon oo sideedii saxda ahayd aysan u socon. Mucus in the stool, saxarada qofka waxaa soo raacaya dareer ama waxa loo yaqaano xab oo kale. Marka xaaladahaas waa xaaladaha lagu garto. Antispasmodics ama spasmolytic analgesic dawooyinka loo yaqaano waa dawooyinka loo isticmaalo casiraada. These drugs help, dawooyinkani waxay naga caawinayaan to reduce inaan hoos u dhigno the symptoms of stomach as well as intestinal cramping, astaamaha ka imanaya caloosha iyo sidoo kale xiidmaha marka qofka cramping micnihii la maroojinayo. They work by slowing, waxay ku shaqeeyaan in ay hoos u dhigaan by the natural movement socodka dabiiciga ah of the gut micnihii mindhicirka ama caloosha. By relaxing, iyagoo dabcinaya the muscle in the stomach and intestine, murqaha caloosha iyo sidoo kale murqaha xiidmaha. Dawooyinkan kooxda ugu caansan waxaa loo yaqaanaa anticholinergic ama antispasmodic agents. Dawooyinkan mechanism of action-kooga ama qaabka ay caloosha uga shaqeeyaan waa maxay? They block the action of acetylcholine to relax smooth muscles, particularly in the gastrointestinal urinary tract, by relieving spasm and cramps. Dawooyinkan waxay xidhaan shaqada neurotransmitter-ka loo yaqaano acetylcholine kaasoo sababa inta badan inay calooshu isku tagto ama contraction sameyso murqaha kala duwan ee caloosha. Marka dawooyinkan waxay sababayaan relax smooth muscles, waxay dabcinayaan murqaha micnihii caloosha ku yaala, gaar ahaan kuwa caloosha, kuwa urinary tract ama kaadi haysta, kadibna waxay yareynayaan spasm and cramping bay yareynayaan, isku tagii iyo sidoo kale xanuunkii ayaabay yareynayaan. Dawooyinkan anticholinergic-ga waxaa kow ka ah ama examples-ka ah dawada loo yaqaano hyoscine, atropine, as well as scopolamine. Scopolamine iyo hyoscine oo inta badan isku dawo ah iyo sidoo kale atropine. Dawada balse ugu caansan loo isticmaalo GI spasm-ku waa dawada loo yaqaano hyoscine ama Soomaalideena u taqaano buskud baan baa inta badan niraahdaa. Waa dawadaas hyoscine-ta loo yiraahdo, waa dawada casiraada. Side effect-ga dawadani keenan karto waxaa ka mid ah anxiety, gariir fara badan, muscle twitching, anxiety ama naxdin ama wadnaha qaraaca wadnaha oo kor u kaca, muscle twitching murqaha oo si involuntary ah u dhaqdhaqaaqa ama involuntary movement of the muscles. Sidoo kale waxay sababaan dizziness, tawaqaad, worsening weakness, qofka oo daciif dareema inuu jirkiisu aad u daciifayo, nausea and vomiting, lalabo iyo sidoo kale matag ayaabay sababi karaan. Dadka laga mamnuucay dawooyinkan hyoscine, atropine ama scopolamine-ka waxaa kow ka ah
xanuunkan loo yaqaano glaucomada oo ah xanuun inta badan ku dhaca indhaha oo intraocular pressure-ka kor u qaada ama cadaadiska isha gudaheeda kor u qaada, kaasoo sababa in ay ishu aad u bararto oo ay godkii ay kasoo baxdo. Sidoo kale waxaa laga mamnuucay dadka leh myasthenia gravis oo ah xanuunkan murqaha inta badan ku dhaca, kaasoo sababa murqaha qofku inay aad contraction u sameeyaan oo ay xanuun ah. Sidoo kale urinary and gastric retention, qofku marka ay kaadidu ku dhegto ama qofka marka ay saxaro ka iman weydo ayaaba sidoo kale laga mamnuucay dadka xaaladda ku jira.